bili-aadanka ah shacabka Soomaaliga ku hadasha waan salaamay salaan kadib kuwa aniga kumaan waxaan ka hadlayaa laba mawduuc horey maxamed goox hadda waxaan ka hadlayaa walaalkay oo dhibaato aad iyo aad u weyn lagu hayo gobolka Minnesota waxaan kaloo ka hadlayaa naag xun oo madluun la yidhaahdo halkaa ka soo oo kalaabad ah naagtaas oo hadda ka hadlaysay dadka kusoo iska baratay dadka Soomaalida ah iyo inay dadka dahabsho oo marba qof ay isku kubsi wax ka sheekayso hadda waxa weeye naagtaas kama hadasho iyadoo wadamada kale Afrikaanka ama Ethiopia ama ka hadlaysa ama lama arkayo ama iyadoo meel waxay ka hadashaa dad gaara bay ka hadashaa dad gaara isir gaara wata hadda waa inaga nagu xumaynaysa hadda qof isirkeena wata ay ka hadashaa isirkeena ama annaga hadda waxa weeye waxay ka hadlaysaa inay yaroo la yidhi waa sanadadii hore la sheegayo maagi war laga hayno oo wax run wax been inay dadkan process waxa loo jiro warkood ayay sheegaysaa dalka laakiin kufsiga meel buu ka dhacayaa dibaan kufsiga meel buu ka dhacaa hadda wuxuu ka dhacaa kama hadlayso kuwa waxa ka dhacay America ka dhacay ama sida gabadha yar 8 years old hadda oo nin u kufsaday oo halkan oo kood barbara lagu jiray Ethiopia waa ka dhaca waa qasal ka daawo ka dhaca meel buu ka dhacaa maanta ugu horeysa inuu dhacay maanta ugu horeysa markii anaga marba ay meesha noo soo gelinayso leedahay naakib laa kufsaday wax anaga ma waa ka gabadha maxamed taasoo miidhan bay u joogaan marka hadda gabadhaas waa la kufsaday gabadha hadda waxa weeye mid buuda booliska la ninkii intuu kufsaday oo Soomaali ah waliba Ethiopia uu duugo xabaalay imise meelada saa ku dhacda marka ayadu program ahaan dad isku gaar ah bay soo qabtay dad gaar ah ayay soo qabtay isirna aad baa ku jira ayadu duudiyahan weeye marba hadda qofka ay doonto iyo isku soo waxayna dadka ugu keenjirtaa sawirkaagaan soo dhigayaa website iyo waan ku taasuusaya iyo saddex xaraf oo shaqeeya waxbaan idin sheegayaa Soomaaliyeed taama ha u siinina qofkaan waa in maxaa raadaay sidada banaan programkeeda waa inaan la daawan waayo waxa iyadu Soomaali lid ku ah waxa dadka Soomaaliyeed waxba uma qabato inay wax walba dad moodiyo lacag siinayo moodiyo inay wax ku qaban karto ama ay am soo dhoofin karto waxa weeye iyadu waa biciidyahan ma garateen biciidyahan waa bacay weeye yaha bacay weeye biciidyahan han weynina way ku jirtaa bacayay hankaygan inaha han baan rabaa lacag baan rabaa wax baan rabaa de waayahay waxaad rabto way maaha ina dadka Soomaaliyeed oo Soomaaliya jooga $200 ka qaadato tiraado anaa process ii sameeyay maaha ina dadka Soomaaliya jooga masaakiinta cadacdo dadkooda lacag yar oo kaarkoon ina dadka Soomaalidu waa dad jaahiliin sideeda banaanba si fudud lagu dhici karaa oo lagu dhibaateyn karaa waxay qofkan oo kale lacag siinaya waxay leeyihiin process noo raadi xagee process ka raadin kartaa process ayay ka raadin kartaa process in uma raadin kartaa in kuma caawin kartaa waxaan in ugu raadin karin in ugu caawin karin baan idin sheegaya Soomaaliya processkeedii waa mid kale naagtaanu waxa ay ilaashataa dad gaar ah iyadoo bixiyaan ka hadlaysa activity iyadoo oo Maxamuud Suleymaan ka hadlaysa activity dad gaar oo iska ah ayay ka hadlaysaa isla dadka isirnaada ku jira haddii maanta qof walaalkii u hadlo oo yiraahdo wiilka halkaan ku silcayo way ka hadlaysaa isagii qofkii bay saloolanaysaa lacag lagu siinaya inay ka hadlo dad isir gaar ah ayay ka hadlaysaa dad isir gaar ah wata ayay gabadha isirnaad ku jira qofkan dumar ah waxa weeye lacag bay ku qaadataa inay dadka ayri aflagaadayso oo ay kufsi maanta dhan ka hadasho habeen walba u soo fadhiisato inay kufsi ka hadasho ayada mooyeen qof habeen walba intuu soo fadhiistay qof baa la kufsaday oo dadka ku soo ficiya laakiin waxa ku dhacay ma jiro dadka waxa weeye xaaladdu markuu dadka u la hadlo daroomada iska inuu yiraahdaa oo wuxuu yiraahdaa daroomada naagtan lama soo kufsan oo Ali Rasuul baa oo naagta ina waliga la kufsan wixii fuulayna waa waxa iyadu u dhigatay waayo waxa ka garanaysaa sida ay ugu nuuxsanayso iyo sida ay u jeceshay inay uga hadasho ayaa ka xaqisa waxaad
kaloo arkaysaa naagtan inay kacsatay oo somehow ay rabto inay maaragtay rag maaragtay u yeedhanayso inay dumar iibinaysana waa possible marka anigu waxaan kula talin lahaa minneapolis dadka jooga ee communityga isaga dhigahaya walaalka xitaa inaan iibi iyo wixii lamida arrintaa inay wax ka qabtaan oo qoftaan wixii lacag siinhayaa iyo wixii hadal halkaaga dadku wuu iska hadlaa socially wuu iska hadlaa dadku wuu sheekaystaa oo dadka onlineka wuu ka sheekaystaa mawduuc wuu ka hadlaa mawduuc gaara oo isaga u gaara iyo waxa dadka tafkiiskii dadka anigoo kale waa ka hadlaa hadda walaalkii oo kale iyo qofkaaga haddii wax loo dhimayo iyo adiga naftaada waa laga hadlaa haddii adiga mas-uul ka tahay dad gaaran dadkaada ay sheegaysa dad baa mas-uulka haddii waxa dadka ku dhacayn dadka unba mas-uuliyadooda qofka laga saaray wax badanoo dad badan ku dhaceen waa diisaa laakiin qoftaan maanta oo dhan bay waxaa ka sheekeynaysa maanta oo dhan bay waxaa ka sheekeynaysa halkaasay soo fadhiisanaysaa ragow waa yaan gabadhaan fuulay ragow yaa gabadhaan fuulay danbay ku leedahay hadda booliiska dad baa u yeeri doona waayo waxaa gabadha waxay ka dhigaysaa gabadh la joogta oo meesha lagu fuulay bay ka dhigtay ya waxa weeye soomaaliya idinkana dhibaata idinku tahay idinkana madaxxuma idinku tahay madaxxumada aad geysanaysaan oo meel walba aad ka geysanaysaan iyo tuuganimada iyo khiyaanada iyo criminal population waxa idinku wacan waa isku dhex yaacdeen dad baa magaca soomaaliyeed wata oo baasaboorkoodu magaca soomaaliyeed ugu qoran yahay ceeb bay ku tahay inay dadkoodii kala garan waayeen dadka Etoobiyaanka iyo dadka Afrikaanka la ahaa oo af Soomaaliga ku hadla inay kala garan waayaan Afrikaanku waa isu wada eegyahay isla East Africa ma aha inay kala garan waayaan dadkoodii Soomaaliya waxa weeye dawladda Soomaaliya magaca Soomaaliya ku hadlaysa waa in maxaa rabay soddon sannadood ee dadka Soomaaliya la kala iibsanayo oo lacagta looga guranayo oo loo baabiinayo waa inay maaragtay arrintan maaragtay ka hadasho arrimaha noocaana oo dadka la silcinayo Maraykan gurihiisa lacagta lagu cunahayo oo kaliyahooda maaragtay loo gelin laayahay oo maaragtay waxba loo qaban laayahay oo maaragtay dadka noocaan oo kale inta lacag la siiyo ka hadla wax aan meesha joogin iyo hebelba waa silcayaa iyo hebelba waa la kufsaday iyo hebelba saas ku dabaxa oo waxaan micnaba lahayn ku dabaxa oo dadka xuquuqdoodii daas oo kale inta halkaa la soo fayso lacag lagu daldalo ku dabaxa ma soconayso yaa la isku khaldin dadka dadka Soomaaliya ku dhashay ee la yaqaano garaadada la ogaashada leh iyo dadka gobolada iyo dhulka kale ku dhashay iyo magaalo wadamada kale yaa la isku khaldin yaa la isku xuquuq laga dhigin oo yaa la isku khaldin midda kale waxaa weeye hadda bari dhaweyd waxaa lagu haystay ninkii madaxweyne ah nin buu sii bixiyey oo nin wadankiisii haddii loo sii geeyeyba nin sii bixiyey وقولك كستها هذا الصومالي دولة دولة وحيكون خلطنتها تذكري الصومالي جرى ضد كهلا إلى تعرفون وضد كذا أنا كل 8 years old هذا يصادق في الكمبيوتر أو أي ما تصادق في إن محارة هذا يلاقي أن محارة سالة وصلنا أو إن محارة هذا جبرير أو under 8 إن أنا صادق في الكمبيوتر أو فيس كذا كمبيوتر كلا صادق شرعية وكجفيسة qofka noocaas kala dawladda ay la joogto ayaa mas'uul ka ah inay daafacdo oo qofkaas nabadgelyadeeda iyo maxaa ilaahdaaye iyo madax iyo wajigeeda inay maartay identity qariso gabadh yareeda halkaa ayaa maartay identity soo saar waxaas oo kale ayaa Soomaali ka qaraabanay oo ku jirta Soomaali waa la iibsaday dadka magaca Soomaaliyeed ee gobolada Soomaaliyeed gobolada Soomaaliya ku dhashay ee Mareykanka meel kasta ha joogeen daawac daafacayo waa la isku dhex yaacay koodii la fursaday suuqa lagu wadaa kii la dilay suuqa waxba looma qabanayo walacag baa lagu cunayaa waxoogaa abeenka $2 qof loo tuuray ayaa la leeyahay hebel baa halkaas lagu dilay hebel baa halkaas lagu kufsaday waxaa halkaas maxaa lagu sameeyay waa same people same thing Soomaalida oo dhan marka inaa kaaba waa ku dhacda kana ku dhacday sidaas yaan arinta laga xiro si kale waxa weeyaan Soomaaliyaay waa la istacweynayaa dadka waxa lacag siinayo dadka lacag siinayo waa laga qabanayaa dawladda Mareykankuna waa naga qabanaysaa annagu 18 gobol Soomaaliya ka imaanay haddaan ka imaanina in annaga Mareykan gudaheeda naas Ethiopia ku aftirsanayso oo Ethiopian baan oo Soomaali u hile inay maalin walba gabdho yaryar oo Soomaali joogo Soomaaliya ku ay wajiyada soo saar
oo ay ka qaraabato oo lacag ku samayso xaq ka yeeli mayno xaq ma aha soomaalidu xaq ma aha inay gabadh yaro 8 years old wajigeeda ay soo saarto computer oo gabadh yaro markaa computerka nin weji weyn oo nin weyn isku sheegahayo oo wariye ah ay wajigeeda dabadeed soo saarto oo ay halkaa kaga sheekayso ilmihii dhexdooda maxay rabaa kaga sheekayso minaneeb dhexdooda ka yeeli mayno dowladda soomaaliyana ka yeeli mayno puntland ka yeeli mayno wallaahi baanu soomaali haddaanu inaanan uga yeelin inaa maxaa rabaa shaqadaas inay soomaaliya wixii jooga ayadu ay shaqada ay daafacdo sharciga iyo ka jira waddanka ay dadka isu daafacdo ayaa haddayna dowlad ahayna inay quruumaha iyo adduumada kale oo dowladaha noo naga caawinhayo noo noqonhayo ay mooday iyo somaliland iyo maxaa rabay dadka hadda waxa weeye gabadh yar oo somaliland ku dhaca miyaad weligiin hadda maqashay hadday ku dhacdo miyaa arkeen gabadh yar oo somaliland sawiradeeda meelaha ordahaya maya gabadhaa yarta oo puntland joogta oo reeraha minority ka dhalay in maxaa rabaa naagtan meesha soo saar waa ku khaldanta haddaba ila eegada bal ila eega sawirkay meesha soo saartay inantaa yar inay meesha lagu sawirka gabadhii ka dambeysay oo hooyadeeda ay wejigeeda meesha soo saartay waad arki oo ay halkaa ka hadlay website-ka markaad eegtana waxay leedahay gabadha yar weli gurigeeda ku nooshahay ninkiina weli meesha uu ku ganacsadaa wax alla wax dhacay ma jirto waxaaba laga yaabaa hooyada inay yiri beesheeda possible wax adigaan nambada ahayn inaad naagaha kusahay aad ku ceebayso oo naagaha lasoo fursaday adnaamo meesha usoo geliso oo haddana reference soo siiso wix aad ka hadlaysaba waxa weeye gabadhiina waa khaldanta mar dambena waxaan ku leeyahay referencegaaga ha isoo dirin kuma dhan badano kuma dhan ha isoo dirin maxaa yeelay waxa weeye sheekadaadu waa xadaa waxaa lagugu yiri ku dabax yacni waxa weeye waxbaa qof hebel baa wax lagu sameeyey qof hebel haddii lagu samayso okay waxa weeye ma caqligal baa haddii qof hebel aqalkiisa wuu dumiya anna aqalkayga waan duminaya qof hebel saas u sameeya saasaan samaynaya waxa weeye isna waa same baan noqonaynaa inaa waxa weeye yacni hadda maraykanka waxaa ka dhacaya qof aan la daafacaynin oo maarata dadka lacagta ku cunhay because of systemka aan maaragtay la caawinhayn yacni kuwaanu kuma yeerba naagtaan siinhaya le waxaan hadda baa ka dhacatay gabadhii gaalkacyo joogtay gabadhii maraykanka joogtay minaneebu waa isku mid weyn wiilka gaalkacyo joogo kaliyaha iyo wiilka maraykan joogo oo afka walaashay waa isku mid weyn micnaha wey waa saa weeye mana isku midna ma aha isku meelna ma aha walaalkii wuxuu haystaa citizen buu haystaa waa citizen weeye sharci wuxuu leeyahay in waxa dadka citizenka oo maraykanka oo sharciga u leeyahay ma aha in lagu dabaqo gabar yar oo gaalkacyo joogta iyo gabar yar oo minaneebu joogta isku mid ah ama gabar yar oo wiil yar oo kaliyaha oo xanuunsanhaya isku mid ah oo gabadhii gaalkacyo joogtaba wuxuu raadinhaya wejigeeda meesha soo saarnay ma shaqaynayso saas ma shaqaynayso oo in dadka xuquuqdooda lagu dabaqo qof kale ayaa halkaa wax ka dhicin qofka halkaa jooga iyo ka halkaan jooga waa isku mid seebay isku mid u ahaan karaa ani mar hore aan protectionaysa waddanka maraykanka ku noola oo sharci waxa u leeyahay waxaan xuquuq u leeyahay dhanba aniga la isiiyo oo daawo la isiiyo oo protection la isiiyo oo dadka isu ataagahayo naagtana kale kuma dhin waxaana kale isoo diraysa layga cesho oo lay daafaco baan anigu xaq leh saasaan xaq leh soomaaliya wixii lacag ku bixinaya naagtaan inay waxaa ka hadashana adigu waxaa ii sheegaa ku bixinina saan adna u siinina sida aan anigu u arka wey